دكتور عبد الله waxaad haysatay shahaadada ugu sareysa ee PhD-ga adiga oo fashkira ah oo shaqo fiican haysta ayaa iskaga timaaday shaqadaadii si aad carruurtaadii waqti ula qaadato oo carruurta kale Soomaalida noo caawiso bal ka war muhiimadda ay leedahay inaad caawiso carruurtaada oo ay cilmiga iyo aqoonta ka qaalisan والله carruurtu waa mustaqbalka bulshadu ay leedahay iyo mustaqbalka ummaddu ay leedahay cid kasta inay qayb qaadato sida ay noloshu ugu guulaysan lahaayeen waa laga maarmaan waxbarashaduna waa aasaasiga u tahay ayaga keliya ma ahane waxay aasaasi u tahay horumarka bulshadu ay samayn doonto berito oo mustaqbalkii ummadda cid kasta oo ka qayb qaadan karta waxtarkooda si ay horumar u gaaraan wanaagga ka dhasha ayagay ku soo laabanaysaa maxay tahay hal message oo aabayaasha Soomaalida u dirayso أبيان صوماليد وحن أدري لها ووالد جعل عروضه لكن إن أي كأجدوا ذاي عروضي وحالات دوري سيحوسة أي ولا صعدان أو أيضا كل مسؤول وكليا إن أي نفقة أهديان لكن أي هوس أفيريان كوريتان كودا مسكعاد يكون سي أي أخلاق دوري وهجرت وما في له كليا إن عطية درء نبتديه كلية لا فكر لكن واحد يقول هاي إن مسكحية لوكرية مسكحية نسي لوكرية لقى مرمان إلا لجو وواحد مسكحه ذا إحوريجية لأوجاده طلق ترانا بس أد باو ما سنتعلم